iyadoo lagu wado in maalinka berri ay si rasmi ah u bilaabato doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka 11aad ee dalka ayaa waxaa soo baxaya shakiyo iyo walaacyo laga qabo inay doorashadu ku qabsoomi weyso jadwalka ay shaaciyeen guddiga doorashooyinka heer federaal. warbixintan waxaynu ku eegi doonaa inta heer ay soo martay isbeddelka jadwalka doorashooyinka ee Soomaaliya 2 Oktoobar sanadkii 2020 golaha wadatashiga qaran oo Muqdisho shir ku yeeshay ayaa waxay soo saareen jadwal doorasho iyagoona shaaciyay in doorashada aqalka sare ay dhici doonto 1 ilaa 10 bisha December halka doorashada xildhibaanada golaha shacabka ah ay iyaduna ku qabsoomi doonto 10 ilaa 27 December sanadkii tagay 2020. waxaa kaloo ku jiray doorashada guddoonka labada aqal iyo sidoo kale madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya in ay dhici doonto 1 Janaayo ilaa 8 Febraayo sanadkan 2021. 23 December sanadkii tagay 2020 guddiga doorashooyinka heer federaal waxay soo saareen jadwal ay ku leeyihiin waxaa doorashada kuraasta aqalka sare lagu soo dhammaystirayaa inta u dhaxaysa 31 December 2020 ilaa 6 Janaayo sanadka 2021 iyadoona 7 Janaayo sanadka 2021 la gudagalayo diiwaangelinta xaqiijinta iyo tababarka xubnaha odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ah ee ka qayb galaysa soo xulista ergada. 29 December sanadkii tagay 2020 qoraal ka soo baxay guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa waxa uu qornaa sida tan: guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal waxa uu danayaasha arrimaha doorashooyinka ku wargelinayaa in isbeddel uu ku yimid jadwalkii doorashooyinka golaha aqalka sare ee hore loo soo qorsheeyay inay bilaabo doonto 31 December 2020 ilaa Janaayo 6 sanadka 2021. guddigu waxa uu la wadaagayaa madaxda xubnaha ka ah dawladda federaalka ee Soomaaliya in qabashada musharaxiinta golaha aqalka sare ay ku eg tahay 5 Janaayo sanadka 2021 halka tartanka kuraasta aqalka sare loo asteeyay in la qabto inta u dhaxaysa 7 ilaa 14 bisha Janaayo sanadka 2021. 29 Juun sanadka 2021 golaha wadatashiga qaran ayaa waxa ay soo saareen jadwal iyaga oo ku sheegay in doorashada xildhibaanada aqalka sare ay ku qabsoomayso 25 bisha Janaayo sanadkan 2021 halka doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya loo qoondeeyay inay dhacdo 10 Agoosto ilaa 10 Sebtembar sanadka 2021 dalkana uu madaxweyne yeesho Oktoobar 10 sanadka 2021. 16 bisha Julaayo sanadka 2021 jadwal ay soo saareen guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa waxaa jadwalkaasi ku jiray in doorashada aqalka sare la qaban doono Julaayo 25 ilaa 28 sanadka 2021 iyadoona la qabanayo codbixinta golaha shacabka ee Sebtembar 12 ilaa Oktoobar 2 sanadka 2021 lana dhaarinayo xildhibaanada labada aqal Oktoobar 7 sanadka 2021. 11 November sanadka 2021 guddiga doorashooyinka heer federaal waxay soo saareen jadwal cusub oo dhigaya in December 24 sanadka 2021 lagu soo gabagabeeyo doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyadoona aan la ogeyn in jadwalkaasi uu dhaqan gali doono ama sidii kuwii hore oo kale uu noqon doono.